Soomaaliya xukuumadda maanta jirta ayaan lagu hadlayn xukuumadda maanta jirta afka ka dhowri mayno waxaan ognahay oo wara isa soo taraya iyada inay garab ku siinayso Soomaaliland duqeynta laasxaanood. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبلوا عاد بوحي سبدين قبل بدأ عندنا استاجد دونا واحد كم ده جراد شامع جراد علي أو سر بدن قرحيو بنان كدقي وعندنا استاجد دونا وانا فلقين دونا سيدو كلا واحد عندنا استاجد دونا عبد الولي علي قاس رئيس الوزراء هون الصومالية عمر عبد الرشيد علي الشرماكي رئيس الوزراء هون الصومالية وما أنت ayaamahan ba xal ka dhaxwaday Puntland iyo shaqaqadii ka dhacday iyo maanta statement-kii soo saareen iyadana waa dul istaagi doona falanqadan gelin doona waxaan kaloo ka marnay dul istaagi doona shirka xabar ee Xasan Sheekh Maxamuud ku raadinayo culayska ku dajinayo oo taageerada ku raadinaya qabaa'ilaadka iyadana waa dul istaagi doona si fiican waa wali doona fartana barta bugta waa ku godi doona aan ku hormaro جراد شامع جراد علي حافظ الله أما ولي الله عنده هلقن لفنبرت هلقن قال صول أيها قابته وحو قرحيي سر وين قرحيي وحاو الشيء يعني حقيقة سر كما هاي لكن بالشدة إذا بان كالبركود كده دعواي وكده دعيه وعشيغ إذا مرخانتي له إيه هدنا نما سياسيين وحمر لغا صدري وهلك كسر حسن الشيخ محمود وبعدي على كورة الناس عانوا ضيقوا تشوان حسن الشيخ كوتشي ده لا يقولوا سي ورتشوان كعفو كحر ورتنا عدوا تشوان كعفو كحر ورقاقا وتشوان كان حسن كوتشي عفو كحر ورنكلي على قابا وتشوان كان حسن كوتشي كل حقا ماشي نك حسن واقروح بداني هل كان كل نقول تشيرا حسن ونا قونصنا يا هيه توقدي حمر كتبت تبع هذا كم يجي جاب كم يجي على جاب كم يجي هاي دليل على السوق السياسي يقرأ شارع قرأ على يد أمين إنسان يا أرتي وأمين إنسان أنا جاب ده أمين ويا ركتين نوكل المدينة تنين دليل يا ركتين قرأ شارع وأنت إيدي شيء ترمي شيء هل كلاس عن عدو كسر ولا هي وهجر دام الأقوى ماذا في كسر دعيس الله سبحانه هل كل جهه inay muqdisho tahay ma ogaateen inay xasan tahay ma ogaateen garaadku in badan buu aamuso xishoodo islaha waas garanayaan waxaaniye inuu caawa qarxiyo ma taqaana waxa ku lifay dhariga maxaa karka keena dhariga karka maxaa ka keena garaad jaabac garaacay hadlaya wuxuu yiri sida tan yiri dhageyso tan maynu in badan baa hoos hadal waa oday weyn nin weyn iyo umursaba siday wax u ogyihiin wax ma sheega siday wax u ogyihiin wax ma sheega inta sooraayadu kugu sheegay qaybtiin waxaad ii arkaysay idinko timacada leefleefaya gaagaab leefleefaya waxaad ii arkayseen nin nimankaas siyaasad ku dhaliya arkayseen wala anigu siyaasadda markii Puntland iyo xamar la yiraahdo xagga idhi laakiin markii sool ay joogto siyaasad iyo ayadu waa kala mamnuuc waa furin dagaal way dhiig baa mulacayeynaya waa meel haddii la koriyo halkan ka socdo way siyaasadda ma gasho wardanteena yaa danteena waxa qofkii nala caloola qofkii hiil la tari kara hatta kan hiil la tarayne naga aamusa waxyeeladiisa hatta abaal baan u haynaa midka isagoo waxna yeeli kara aan waxna tarin waxna yeeline dhinac noo dhaafo naga aamusa abaal baan u haynaa abaal raagaan u haynaa wali siyaasiyiinta la hadlaya siyaasiyiinta dhalinyarada leeftaan la hadlaya ee halganka ku soo xoqda ee dabada u soo gulgelaysa barta dadka barta siyaasadana u dhug lahaado madaxdiinana adeeca ninka la garaad jaamac garaad cali inta idin sheegay way xaqiiqadu garaad jaamac kaliya ma sheegin horay waxa uu sheegay horay cali khaliif allah u naxariiste nin aan moodi jiray oo laga dhaadhiciyay waa inuu majeerteen nacab yahay laga dhaadhiciyay kadib aan dib ka ogaaday nin balaaya heshay oo balaaya muska u fariisatay oo reer hoolay muska u fariisteen halkaasna xasan buu waa lahaw wuxuu yiri hooy dhageysta khudbadiisa waraadi ka dhan google ku jida hooy dhageysta bi Soomaaliya hargeysa laga kala goynayo ee Soomaaliya meesha laga kala goynayo waa Muqdisho
meesha urur Soomaaliha xarunta urur Soomaaliha ee Soomaaliya laga kala goynayo waa Muqdisho maantana ayadoo faahfaahsan cadaymaheedina wadata xogogaalkii weynaa oo mulusay nin weyn say wuxuu ogyahay ma sheegan maqla jiray xogogaalkeedii iyo maanta halganka lafdabartiisii waa tuu maanta ku dhawaaqay waa garaacan garaad cali waa tuu maanta ku dhawaaqay war xasan waa ninka war ninkii xasan leefleefaya iyo kan muuse leefleefaya ina koore kala weeye war aan iska fogayno haddaan halgan ku jiro haddii kala Soomaha haddaan isla meeraysano qodobkaas halkaas aan dhigay xasanna halkaas iga yaala karno laga saar qodobka aad xasaasi ugu ah ee xasan oo soo laabanaya Umar Cabdirashiid iyo ninka Cabdiwali Cali Gaas ba maalmahanba waxay lahayn xal baan keenaynaayo wafdi bay ahaayeenoo garow way yimaadeenoo waxay dhahay shirki isimada horta soo keeni waaye labadii isimadii bari jiray iyo kuwii nugaaleed horta waa la isu keeni waaye la kala qusay meeshii wax ka dhaceen oo garow waa ahayd oo aaran jaan ku birin birqaysay dadkana ku laysay isimadii kaloo yiri imaada isinkii islaan ciise islaan maxamede iyo boqor burhaan boqor adiyaal ku raya boqor muuse waxay isku qabsadeen gudoonkii anaa shir gudoominaya iyo anaa shir gudoominaya maalin dhaweyna waa idin sheeg maalin dhaweyn waa idin sheeg aaran jaan islaamkay baryeen islaam maanta boqorku waa noo hiilinaya islaam boqorka mucaarad weeye isku doon baan saaranahay gudoonka u daabay dheh islaamkuna wuxuu yiri maanta haday imadho halaq mareen ma noqonaya halaq mareen halkaas halaq maraya ilaah bay ka tahay Allah ka tahay boqorkii way u tageen Cabdiwali Cali Gaas iyo Umar Cabdirashiid boqorow kaalay xawsha wax ka qabo marka isku dambaatihiin wax kasta u sheegay ilaah bay ka tahay maanta hadduu garowe islaam bashi islaan ciise oo islaan ciise maxamuud hadduu garowe igu xukmiyo ama igu bahalkiyo igu gudoomiyo anoo boqorkii daarooda wallahi kabada ballaysaareen biyo kabadambe wallahi laysaareen kaka waa iga xayuubsanaya waa iga boqornimada ina siiyay noqonaysa horta saldanada adeeraday isku haystaan ayaa shirkaas u dhicisoobay horena waa kugu sheegay odayaashii marka waxa la isdheheen odayaashii waxay xalmoodeen bay soo saareen waa labadii ra'iisul wasaare maanta tagay waxay soo saareen wax aniga Ayuub ahaan markaan fakaray waa aniga Ayuubade qodobo isburunay maxaa kamida marka qodobada in badan dhowr ismeetii ahaayeen in badan daway wanaagsanaayeen nabadda laga shaqeeyo diyaal ku rooyo horumarka laga shaqeeyo halganka la aado qodobadaas way ugu mataleen qodobo nasaba laakiin qodobo isu kay qaban waayay baan meeshii ka arkay laga yaabay idinku inay ila aragteen waxaan arkay waxay dhaheen dastuurka lama furi karo hal joojiyo ko doorashada xildhibaanada one man one vote hal lagu soo dooro oo yaan dib loogu laaban qabaa'ilkii yaan lagu laaban waa labo sagaal xisbiyada sagaal xisbiha laga dhigo sahal loo sii daayo waa saddex dastuurkana yaa la furi inta waxa sii dheer babular hal galo qof kasta xataa isharixi kara ama madaxweynaha raadiyan baalka raadiyay soo xisbi ku jirin hay sharax inta waa fikir wanaagsan fikir siyaasi weey laakiin waxa isu kay qaban weyday dastuurka yaa la furi dastuurkan faroole hoolay uu qoray waxa ku yaala saddex xisbi kaliya saddex xisbi ee tami karaan deegaanada dastuurka waxa furaya wuxuu u yiri maadaama saddex waxa cadaa isbaan xamuud noqdeen asagoo isla waxa shaati u gali oo umada ka qurxi umada kale xisbiyadooda ku soo daro xisbiyo hataa haday saraayn u samee asagoo isle buu yiri shan xisbiyaan ka dhigaya dastuurka in la furo marka baa looga bixi karaa saddex isbaan xamuud ila isaan xaga shaqaystay xisbiyadii saraystay dadkan kale waa saxdeen dastuurka marka hadaa la furin oo nimanka dastuurka la furin bay dhaheen sagaal xisbina hala fasaxo isku iswaafajin waayay waxaan u arkay sambuus afargeesa in odayaashu noo dhiibeen sambuus afargeesa baan u arkay oo leeyahay daniyo xagga qaniin ismadu xagga qaniina aaran jaan xagga qaniina halka ridoo dambana
shacabku u haray sambuuskaas inay dheheen baa u arkaan sababtoo ah dastuur xisbiyada sayaa laga dhigo dastuurka yaan la furin waa isukay qaban weyday ummadana waa la doomaynayaa qodobkaas sidaas ku rogay sambuus afargeestan u dhigay haddaan si kala u dhigana ay diidna garle alina garlana waa ilaagta waa tahay malihi waa ilaagta qodobkaas halkaasaan dhigay odayaasha isla maantaba waa sii daayeeno weliba waa sagteen baa layidhi oo diyaaradda ka horreysay xataa waa qallimatay okay maxay u sii daayeen xaggee aadeen odayaasha xamar baa looga yeeray xamar dameer baa xaado kala taagnaa xamar baana looga yeeray yaa xamar ooga yeeray xasan baa xamar ooga yeeray munaafaqii xasan ahaa baa xamar ooga yeeray oo muxuu ka rabaa waa su-aale wuxuu yidhi siyaasiyiinta musharaxiin hore ee madaxweyneyaashii ra-iisul wasaareyaashii baan xasumayaa ma isweydiis maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa xukuumaddii xasan musuq maasuqeedii iyo waxaa buuq baa galay guddoonkii baarlamaanka iyo ayagii baa ishardinaya baarlamaankii mooshinaa xagga iyo xagga isku dhaafay lacag baa saa loo qaybinaya ayadoo la isleeyahay xukuumadda culayska laga rogo ayadoo la isleeyahay wixii waagi dhaweed nolosha qaran loogu yeeray ee nimanka maamul goboleedada intii baahnayd inta loo yeertay la yiri saa inoo saxiixa ee marxuumka inta loo yeeray kursiga ku-xigeen baan ka dhigayna intii weeye waxa loo farganayo oo la leeyahay in la socodsiiyo intii baa taageero loo raadinaya okay markii la yiri ra-iisul wasaareyaashii hore alla waadan beerka u dhiman meesha waxaa soo fadhiisanaya cannaba waa xubin roob labaahan oo yuurura arkaysa oo ra-iisul wasaare oo sheeganay xasan cali khayre waa la jin weyn wey iska dhig isaga cumar cabdirashiid haddii alla ku rooyo cabdiweli cali gaas alla waadan beerka u dhiman cabdiweli yuulka ma imaanaya maaqaan saa shirdoon waa nool yahay inuu imaanaya maaqaan meeshaas odaygii farmaajo ahaa madaxweyneyaasha hore imaanaya sheekh shariif ba maanta ka nool wax madaxweyne caadiya soo maray meeshaan oo nool ninka la yidhaahdo farmaajo imaan mayo meesha farmaajo imaan mayo meel haddii alla ku rooyahay soomaali lagu kala qalanayo oo heshiisyo xaaraana lacaga lagu kala laaluushayo oo lagu bixinayo horta imaan mayo xasanna mid baan u sheegaya caawa fariintayda gaarsii war waa fariin qaaliye fariinta iga qaado sheergaray oo gaarsii xasanow halka haddaa u boodi lahayd iyo haddaad cirka soo leefi lahayd cirka world bank hadday noqoto IMF hadday noqoto beesha caalamku waaga dhaqaalihii waa isreebto xoogaaga yaalaya dhoocishaada iyo dhoocilkaaga iyo carruurtaadaa leefleefay islaantaada iyo sodohdaada iyo ka badin weyde wasiirkii maaliyadda baa dhaqaala keen dhaqaalihii wiil iyo carruurtaada godatay ka reeb baad u cayris waxaa taageeraa u raadinaysana waa inaan dhaqaale heshid waa in beesha caalamka ku kalsoonaato waa in lacag ku siiso beesha caalamka kasoo tag xaggayga dhig shirkaasi haddaad hawiye la uunsan lahayd qabiilkaa ka dhalatay hawiye haddaad la uunsan lahayd oo dhihi hawiye u kaco itaageera oo beesha caalamka waxaad istaan anaga hawiya areeyaarey anaga hawiya shiribkiini areeyaarey anaga hawiya xasanaan taageersana iidaha dheh daarood ba soo haray daarood laba nin baa saddex nin baa matasha saddex baan ka dhigay saddex baa matasha saddexdaas baa daarood maanta masiirkiisa haysa hadday ku taageeraan ama shirkaa kasoo qayb galaan waa falilah alxamdu ko waliyullahi almukarab maxamed cabdullahi farmaajo ana ogin suleymaan hadduu yidhi hala taageero waa ku taageerina aan khayrka aragno ko labo siciid cabdullaahi deni maxamed geesood siciid qurux laba dheh saddex waxaa ku ah soo raaca garaa jaamac garaad cali waliyullahi alakram garaa jaamac garaad cali baa saddex ku ah saddexdaas maahe wallaahi oo bilaahi oo tollaahi baadan dhule daarood leeyahay naga dhadhabin maysid cirka soo leef cirka adiga iyo hooley beesha caalamka kaala hadlo ereer samaale areey ereer samaale iyo muuse biixi inta shiribtaan oo uunsataan oo qol xirataan beesha caalamka hala hadlo annagu wixii ka soo baxa falaysa mina nama khuseeyaan nala kuma matalo cumar cabdirashiid iyo waxaa diinnaxye nama matalaan marxuumku nama matalo qof calooshiisa wax u raadsaday nama matalo
beel baanu nahay daarood ismaaciil baana la yidhaahdaa caalamku waana yaqaan dayn bixiyaashu waana yaqaan ma tuugsano ilaahay waana yaqaan saddex nin baana matasha saddexdaasaan ognahay inaysan gorgortan ka garayn danaha yaga baana matasha waa farmaajo qurux waa siciid qurux iyo walilahi almukarram ninka la yidhaahdo muxuu ahaa ninka la yidhahdo gaajaan garaad cali wabilahi tawfiiq xasanow tigtiga meydkeeda ha siiyato marxuumadaada aruurso kuwa kale ku darso meelaha iska diina xdiixnay waxaa ku dhaanta wallahi billahi tallahi waxaa ku dhaanta waxaas aad guranaysid wallahi waxaa ku dhaanta adoo yidhaahda abrihi mudullood aanay dhihi jiray shirib iyo tumo igu ammaana baa kugu dhaanto beesha caalamka u dira musabixi ama warqado u qor ama beesha caalamka kala hadal ama hoos ka taageer aday ku taalla muusena waa iskaga filana maalmaha hoos socdana annaga muuse waa kala baxayna haddaad gooja cad inta barida qabatid haddaad gooja cadda ku hayn kadhid ku hay haddaad gooja cadda ku hayn kadhid intaas anoo ballana waana ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu